bilaabeynaa waxyaabihii may su-aasha ugu dambeysay ee waxyaabihii xumaa saxda ahayn aad soo aragtay ayaan su-aasha ugu dambeeya haddaan kaa weydiiyo ma aragtay meeshii la odhan jiray jeel ogaadeen ma tagtay adigu ها horta meesha runtii meeshii ugu qaracanka badneed oo meel la yidhaahdo aan tago waxay ahayd waa jeel ogaadeen haddana waxaan nala socday laba halgamaa oo qaali ah oo nooga sheekeynayay waxyaabihii iyo dhibaatooyinkii ay ka soo mareen iyo wixii lagu sameeyey waxaan godadkii la geliyey god oo aan indhahayga ku arkay oon aniga xitaa aan galay oo waxaan arkay biyihii dadka lagu gebiga maxaa la yidhahda meeshii uu biyaha meel yar oo war oo kale ah uu geyn jiray waan soo arkay iyadana waxaan horta aada uga xumaaday in meelaha qaarkiis inay rinjiyeeyeen markaan tegay dowlad deegaanku waxay odhanaysay meeshan waxba yaraatee waxba lagama bedelin dhibka wixii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday laakiin jeelku wuu furnaa meel waa cunto lagu kariyo meel ciidan ay joogaan meel ay rinjiyeeyeen meelo badan oo ay qurxiyeen iyadoo aan ahayn waxyaaba inay in haba yaraatee wax isbedel ah aanan lagu samaynin so calaa ayi xaal aniga meeshii igu murugada badneed aan arkay waxay ahayd jeel ogaadeen waxaanan jeclaan lahaa dowladdu ballanta ay qaaday ee ahayd jeel ogaadeen in haba yaraatee in laga dhigi doono meel taariikhiyan ah in inta ay goorigoor tahay albaabada si fiican loogu xiro oonan wax shaqo aynan ka socon adartan inuu noqonin meel museum oo kaleeta ah waxaa jirtay oon arkay derbiga ay dadkii maxaabiista ahaa ku qorayeen sometimes qofkii jecel yihiin wax ugu qorayeen sometimes waxay ku qorayeen waxyaabo ay iyagu dareenkooda wuxuu yahay heesay ku qorayeen qaar baa gabayiyar ku qorayeen qaar baa aartiyar ku samaynaya so waxaas in aan la bedelin meesha dadka qaarkiis ay deganaayeen waxay ahayd waa qol yar oo musqula oo god ah oo meesha seexanayeen waa meesha ku saxaroonayeen so haddii aan arkay wax murugo ah oo aniga i dhibay oonan ka ahayn mataqaanaa masaakiinta tirada badan ee baryootamaysa waxaa weeye in jeel ogaadeen ayay ahayd axmed xasiin halkaas su-aal waxay xasuusisay baryootanka iyo masaakiinta faraha badan ee suuqa joogtay adisabiyo jigjiga yaa baryootan badan waxaan dhihi karaa haddii la dhaho population ahaan haddii la dhaho waxaa baryootan badan jigjiga dadka jooga masaakiinta joogta maxaa dhacay numberkooda ayaa waxa weeye let's just say inay jigjiga ay ku nooshahayba 500 oo kun laakiin dadka waxbaraya sabana ay dhowr milyan ku nool yihiin marka waa isku mid ama jigjiga aad u badan because maxaayad baad kasoo bixi ama geli waxa weeye 20 qof ayaa hortaagan oo baryootamaysa so marka taasna wax laga samayn kara ma jirto hal ama laba qof wax waad siin hadhowti inta kaletana way lacag bay rabaan ama waxbay ama lacag iyo cunta rabaan so marka masaakiinta aad bay ugu badan yihiin ilaahayna waxaan uga barya inuu u fududeeyo dadka qaarkiisna waxaa la leeyahay masaakiin ruma maba ah oo ganacsataa ayay meesha u yimaadaan oo marka dadkaasi ma dad af soomaali ku hadlaan mise waa dad ethiopian sir ka tagaan runtii waa labadaba dad badan oo mataqaanaa soomaali ah oo deganaa oromada dhex deganaa oo lasoo barakiciyey oo si dhab ah markii ugu horreysay masaakiin u noqday ayaa jira iyo mataqaanaa dad mataqaanaa aanan soomaali ahayn even waxaa jooga mataqaanaa syrian ba ayaa baryootama oo masaakiin ah waa hagaag hal wiil baan rabaa inaan waaya waxna dhex maray inaan
nin si uu yar fiican buu ahaa keligiis buu ahaa waxaan ku yidhahda kaalay magacaa wuxuu yidhahda waxaa la yidhahdaa xasan xagee ka timaaday wuxuu ii sheegay adiga dhinaca tuli guleed iyo eedadiisa ayuu sheegay kadibna waxaan ku yidhahday mise jir baa tahay wuxuu igu yidhahda waxaa ahay 7 jir marka waxaan ku yidhahday yaad la joogtaa oo wuxuu yidhaha hooyaday wuxuu yidhahda dhinacaas kaleeto gadaal bay joogtaa oo ay kaa dhinaceeda gadaal ay ka shaqaynaysaa anigana xagga baan joogaa shaqaynaysaa buu yidhi markii hore ilaahay ii duceynaya maanta dhan waxay sii marka waxaan ku dhahay mama inaan kula hadlaan rabaa marka hore aan wada hadal kadibna waxaan weydiiyey maxaa maalintii meeqaad samaysaa wuxuu yidhahday waxaan sameeyaa 100 ilaa 110 ber baan sameynaa ayaan sameeyaa markaad samaysid haddaad intaad samaysid maxaa samaysa markaasaan hooyanaa markaas waxaan ku yidhahday haddaan 100 ber ku siiya haddeerto maad hooyanaysaa wuxuu igu yidhaahday haa so 100kii baan siiyey waxaan ku yidhaha okay adaba iska hooyay waxa weeye 4 iyo 5 galabnimo markaan saa siiyey kuwii walaalkiisu ii soo diray kii walaalkiisna waxaan siiyey isagana 50 markaan siiyey isagana 100 siiyey kii walaalkii uu ii xanaaqay wuxuu yidhahday walaalkii 100 baad siisay maxaa ana 100 ii siiyey waxaan rabaa inaan ku tuso dadkan way baahan yihiin laakiin waxay u arkeen routine meel ay income ku samaynayaan dadkeenuna waa iska yara waa deeqsi oo intaas qof walba wuxuu hayo ayuu siinaya laakiin haddaad mid wax siisid kaletana waxa intii in laeg buu kaa rabaa haddaad wax yar kaysu ku xanaaqaya that's the reactionkan masaakiinta xitaa kasoo arkay so marka tan waxaan ka hadlayay inay soomaali yihiin ayaan raba inaan ku xaqiijiyo dadka qaarkiisa waa hagaag waxaad sheegtay dhibaatooyin fara badan oo wadanka aad kala soo kulantay ee sanadkii 2019 dhibaatadaasi nooc kasta ay isugu jirto ugu dambeyntiina waxaan dhihi karaa dadkaad sheegayso adaptives kala sameeyeen marka ay rafaadka ama dhibaatadu ay ku badatay ilaahay intii dhiban ha ka saaro laakiin mudanayaal iyo marwooyin iyo daawadayaasha sharafta leh waxaan usoo qaadanaynaa oo keliya taa sanadkii 2019 mudane axmed yaasiin oo aan muddo dheer wadanka arag waxyaabihii ku soo arkay wixii xumaa ama aan wanaagsanayn in laga gudbo loo baahnaa ayaan intaa kusoo koobi doonaa waxaan uga gudbi doonaa mudane axmed yaasiin mar haddii uu sheegay waxyaabihii dhibaatada ahaa ee wadanka jiray axmed yaasiin xalkeeda bal sida lagaga bixi doono ugu dambeyn waan ka hadli doonaa barnaamijkeena gebagabadiisa maxaa ku farax geliyey mar haddii aad dhibaatada noocaas aragtay ee isugu jirtaa wax uu isu geystay dad shacabka soomaalida ogaadeenaya waxay ethoobiyaanku u geysteen wax ay dantu baday dhibaatooyinka faraha badan way isku wada jiraan maxaa wanaag ah oo soo aragtay oo dadka noocaas ah barbar kalena wanaageed kusoo aragtay muxuu yahay horta waa sax wey gilibka waxaa waa liisacay meeshii dadka dadka waa sax waanu ku mahadsan yahay mataqaanaa weli xanshi iyo mataqaanaa sucaad labada way ku mahadsan yihiin horta waxyaabaha ugu farxadda badan waxa weeye barwaaqada horta wadanka siday tahay markaa aragtay quruxdiisa maskaxdaada ma kelin karto natural mataqaanaa resourceska dadka say u faraxsan yihiin qof walba markuu kusoo dhaweynayo kalgacalka iyo jacaylka ka muuqdo adigoo dhan ayaad waad iska oynaysaa run ahaantii markii baadiyihii aan tagay aan arkay dhalinyaradii iyo mataqaan dhaantooyinkii iyo gabayadii iyo waxii nalagu soo dhaweynayo wuxuu ahaa dee wax aadan rumaysan karaynin oo farxad ah motionkoo dadku aad buu haay u ahaa waxaa kaleeto oo farxad mataqaana dee caanaha geela ee mataqaanaa adigoo arkaya inta lagu soo lisay aad iska cabaysid godayo kaleeto markaan tegay waa magaalo dhan weeye oo mataqaanaa webigii iyo dadkii iyo quruxdiiba cuntada fruitska freshka ah iyo cuntada macaan iyo markaad aragtid dadkan ma rumaysanaysid waa
farxadda meesha ugu dambaysa qofkii aas dhahaysay intaasoo dhibaato ah ayaa haysatay ayaa oo aas dhahay qofkan mataqaanaa aad isleedahay wuu dhiban yahay ayaa wax alla wuxuu hayo ayuu qarnay tusaale ahaan baadiyaa markaan timid iyagoo geelii ka wada maqan yahay ayaa hal geela ayaa noo soo socdaana waa ina loo keeno oo meeshii geel annagii naloo qalay oo haddana tusaale ahaan geeli naloo qalay meel baadiya guri naloo dhisay annaga guri cusub naloo dhisay oo gacantooda ay ku dhiseen dadkii aan tagnay kadib baa geel inta naloo qalaa cuntadiisi hilibkiisa cunaynay oo aan bariis iyo waxba toona aanan lahayn imagine that so waxay haysteen oo dhan ay ku siinayaan so wax ka fiican oo ka wanaagsan meel lagaa jecel yahay meel mataqaanaa aad leedahay waa dhulkaagi oo qofku ku leeyahay waxaad meesha qaado kaalay waxaad doonaysa ka samayso barwaaqada beerihii baan dhex galnay oo meelaha qaarkiis oo sabuul iyo wax walba nalaga siiyey kalgacaylka dadka ay hayaan iyo siday wax walba kuugu ogol yihiin siday ay rabaan in aad ula joogto waa wax aanan la malaysan karaynin hobkooda farxaddooda barwaaqadooda kalgacaylkooda ma tirin karo وهاجاك أحمد ياسين أنت نولد وليا سنة 2019 ka hor meel geel joog iyo meel geel lagu listoon ma aragta adiga maanta way ka shifaysaa ما sanadkii waa laga soo gudbiyay sanadka cusub baa la galiyay 2020 yaa lagu sii socdaa marka sanadkii horte sanadkii 2000 sanad geel maxaa dhigi jiray xamarku عمري جيل maxay geel nool geel dhalin ku tusaa anagu xamaarada tiraahna xamar ka dhaha so in any case waa markii ugu horeysay waa runtii oo aan arko meel uu geel da suuq jooga waan arkay laakiin ma aan arkin geel mataqaanaa la lisayo iyo waxyaabaha jirto maan arkin waa markii ugu horeysay bay ahayd alxamdulilah waan ku faraxsanahay aniga keliya ma aniga caruurteeda iyo inteynaba waan wada aragnay laakiin geel axmed yaasiino bal kaftana ila ahaatee geel meeshuu seexda habeenkii maxaa la dhahaa taas adaan ku daynaya haddaad ani iidaysa xeraa la dhahaa xero geel baa la dhahaa haye geel waxaan kuu sheegayaa uun mataqaanaa inaan kuruska geela oo qaybihiina cunaan kuu sheegaya taas xabashidii la odhan jiray maxay axmed guri baa geela maxay hilibka caydhiin baray si fiican aad baan kuu sheegayaa wahagaag baadiyaha tagteen adiga iyo caruurtaada oo halkan aad ka tagteen Soomaalidan waxay tiraahdaa geelu oo ku maamahda geelu duqdiisu durdurisay arinkiisa maxaad u malaysay adigiiba markii ugu horeysay sanadkii 2019 ayaa kuugu horeysay xiro geel iyo geeliyo la lisay iyo geel suuq jooga mooyeen geel baadiyihiisa iyo dhulkii Soomaaliya dile marka maxay dareemeen adigiiba 2019 ciyaalkaaga 2019 geel wada aragteen xiro ku jira mise waad ugu horeysay horta marka intaad soo aragtay adiga u yeedhay waan wada aragnay hal mar baa wada aragteen hal mar baa wada aragnay okay marka maxay dareemayeen markii ay habeenkii duurka la seexanayo waxaaba la dhihi karaa sanadka waxa taariikh adiga ciyaalkaaga kulleygana waa in la wareysto aad bay ugu fiicnaan lahayd ama create ma aha waxaan dhihi karaa hawlahan waxay kamid yihiin sanadkii 2019 ilaahay Janiska uu siiyay shacabka Soomaalida ogaadeen ama Somali State dalka dibadiisa ku noolaa iyo kuwii iyaguna dalka gudihiisa joogay oo guryahooda inta ka soo baxeen banaanada seexday martidii iyo dadka ay jeclaayeen la soo dhaweeyay kalgacal sooray wanaag iyo qalbi furan
waxay ka mid ahayd waxyaabihii wanaagga ahaa ee 2019 uu shacabkaasi nasiib ku helay ay ka mid ahayd. waxaana axmed yaasiin uu ka mid ahaa dadkii ilaahay ku simay isaga iyo ciyaalkiisu inay hal maalin ehelkood oyna muddo dheer is arag ay arkaan baadiyana iyo geela xero geela ay habeenkii wada seexdaan. axmed yaasiin halkaa inagoo ka wadayna xaggee magaalada aad ka tagteen baadiyihii baa laydin geeyay adii ciyaalkaagiiba maxay dareemeen? ma la soconnaa edmonton ciyaal iskaga dhashay oo canada ku dhashay oo aan aqooni weligood. anaa geeyey baadiyana lama geenin hay laakiin waxaan de waad israacdeenun waa dee saa anyway waxa iyaku wixii ugu darnaa waxa horta baadiyihii aan u malaynaysid mataqaana inayn technology waxba haysan hay iyakoon af ingiriis ku hadlin oo oon waxba ciyaalkayguna af soomaaligaba uu aada ugu yaryahay saa ayaa telefoonkii bay games bay qof game bay wada ciyaarayeen way wada tartamayeen gameska ay caruurtayda halkan ku ciyaaraan bay xaggaana iyagana ku ciyaarayeen candy crush iyo taris iyo waxyaabo badan oo aniga aanan isdhaynin waa baadiyihii way samaynayaan technology way gaartay waxay haystaan wada iphone iyo balaya la wada haystaa so dhinacaas horta iyagoon is afgaranaynin caadi bay wada ciyaartayeen oo teendadii yareeda meesha naloo dhisay aqal soomaaligii ayay ku wadi jireen oo dhulka wada sacdeen kadibna iyagoo ilaa habeenkii saqdi dhexe wada ciyaaraya ayaan kala sacseexiyey laakiin halkii waxay ka complain gareeyeen wuxuu ahaa markii geela quraacdii naloo keenay oo dee beer naloo keenay ayaa beerkii dabeel xun baa socotay dee saliiddii ciiddii iyo saliiddii iyo wixii oo dhan baa isdhex galay so quraacdiina bilaa rooti bay ahayd so that's the complaint oo aaba ciid baan cunnay bay igu yidhahdeen waa loo laaqay waa loo qariyay ciyaalkii si fiican taas waxaanan ahayn aad bay ugu raaxaysteen oo uga mabsuudeen oo ay u jeclaysteen inay arkaan dadkoodii iyo dhulkoodii dad iyakii oo kaleeta ah oo ay isku meel ka yimaadeen oo asalkoodaba waan u sheegay waxaan ku dhahayay mar walba wax kastoo samaysaan halkan waxaa lagu leeyahay iyo africaad ka timaaday so africaad ka timaaday african baad maqal jirtay hadde soomaaliya ka timaaday dadka qaarkiis lagu leeyahay hadda waa meeshaad ka timaaday asalkeed waa tan dadkii meeshan joogaan awowgiin halkan uu ku haadsan yahay oo waa kaasaa sheekhaasn god meeshii lagu aasay ayaan tusay oo waa kan meeshii asalkiina ahayd so waxay ahayd wax muhiim oo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah oo dhinaca caruurta ah so taarikh fiican oo ilaa hadda ay ka sheekeeyaan sawirro badan ay kasoo qaadnay iyaguna inay waddanka fahamsan yihiin hadda loogama sheekeynayo dhibkii waxa jiray kayga yar ilaa hadda uu ka sheekeeya wuxuu raba inuu sameeyo next sun soo socda ayuu rabaa inuu tago oo uu hal sano joogo kan kayga waa hadda ku dhamaynaya high schoolka kaas kii kaleta ee high schoolka dhameeyeyna lama jaamacaddii jijiga ayaan geeyey uu arkay jaamacaddii uu dhigtay 6 bilood uu soo dhiganayay oo uu arkay sidii ardaydii soo barteen saaxiibo kasoo samaystay qorsheegana wuxuu ahaa inuu dadkiisa uu soo barto wuuna soo bartay marka taasna waxay ahayd guul kaleeto wagaag axmed yaasiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay kolley lama qiyaasi karo wanaagga iyo waxyaabaha uu lahaa sorry qofkaasoo waxay lama qiyaasi karo oo bulshadii guud ee soomaaliyeed ama somali state ama soomaalida ogaadeen in aan idhaah kala qaarantay ayaad ka mid ahaydeen sanadka jaaniska u heshay in ay tagaan dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan soona arkaan waxyaabo fara badan waxaan ka hadalnay waxyaabihii dhibaatadii aad la kulantay aad aragtay shacabka dushiisa ka muuqatay iyo dhulka intaba sidoo kale wanaag aad kula kulantay dadka shacabka ahaa su-aashu waxa ay tahay dadkan shacabka ah eed meesha ku arkayseen maadaama oo dhibaatooyin fara badan uu soo maray shacabkani oo ayna
weligood xorriyad arag, ayna arag furfuraan, ayna arag nolol tan inta badan dunidu inteeda badan ay ku nooshahay. Xitaa soomaaliya iyo kenya iyo jabuuti iyo dalalka deriska la-ah ogaadeen iyo ethoobiyadan haysata intaba nololahay ku nool yihiin oo kale uuna dadkan shacabka uu ku noolayna uu yahay dad meel aada u hooseeya la gaadhsiiyo oo weli dusha laga haysto. dadka niyadiisu see ahayd? ma dad caalamka ka warhaya oo adduunka la socdaa haba dhibaataysnaadee, mise waa dad cabsan haya oo qof waliba uu ku jiro uun ilaahow i badbaadi, oo aan iyagoo isu baxaynin oo kala xidhxidhan oo qof aan la sheekaysanaynin, mise waa dad tabartooda guruufaya oo adduunka la socda si dooni ha ula socdeen, inkastoo dee ay caawin kartaba teknolojiyadan iyo waxyaabahan. amaya horta dadkan waa dad horta adduunka way la socdaan, laakiin giddig dadka intiisa badan qalbiga ayay ka dhinteen oo waxaa ka maqan isku kalsoonida aada uga maqan. tusaale ahaan odayaalkii odayaal dhaqameedkii oo aanan dhaqankii aan howlgaraynaynin, oo ganacsatadii oo rabto uun in siday wax u dhici lahaayeen intay qaataan projecti oo isdhahayo uun mataqaanaa qaarna lacagna dowladdu wasiirada si qaar kaleetana adiga mataqaanaa qaado, qaarna mataqaanaa wax yarna waxaad tustaa shaqadii aad ku qabanaysay. waxaad arkaysaa macallimiintii hadda tusaale waan ku dhahay wiilkii jaamacadda tegey, jaamacadda wuxuu ku leeyahay waa shantii cishaba 3 cisho ayaad arkaysaa professorkii oo 2 cisho kaleeta classka iyadoon la ogeyn bay iska kasoo dareynayaan. waxaad arkaysaa shacabkii oo ciidanka ama booliiska ama wax lamidka aada uga cabsanaya, ama uun iyakii aan isdhehaynin waxaan adiga iska leh. so haddii aan hal wax dhaho, waxaa ka maqan ka ugu sarreeya madaxweynaha ilaa iyo ka ugu hooseeya wixii dhihi jiray wadaniyadnimadii iyo lahajecladii ayaa ka wada maqan. oo dadkii muddadii intii gumaysiga ama jiray ama ka haddaba ah oo mentally maskaxda laiska gumaystaa ayaa weli dadkeeni maskaxda aada looga gumaystaa. mana u malaynayo inay arki karaan, because qofku walaashii Suleykha waxay dhahaysay waxaad ku qiyaasaysaa Canada iyo Maraykanka mar walba meeshaad joogtid si xarigta unbaad noqonaysaa. haddii waxyaabaha qaarkiis ay u aragtid caadi inay tahay, haddaad caadi u aragtid jidkii lagu kaadso sida Addis Ababa oo kaleeto, dee qof walba inuu iska istaago jid ku kaadiyo waxba dhib lama aha oo waa caadi. hadday kula tahay mataqaanaa intaad xoola naag dameerkeeda markii aan godayo aan usii soconay ayaan kasoo soconay ayaan waxaan arkay dameer la jiiray oo qofkii dumarka ah iska lahaa ay dul taagan tahay oy ku ooynayso, laakiin qofkii jiiray wuu iska tegay, iyadiina qof ma jirto. so marka haddii wax markaad jiirto iskaga dhaqaaqayso oodan responsibilities ka haddii aad reer baadiyihii hadda ay jaadkii uu normal u noqday oo aynan habeenkii oo dhan ay jaad usoo jeediyaan, subaxii oo dhan ay hurdiyana normal noqotay, haddii oday dhaqameedkii intuu joogi lahaa meeshii qabiilkii iyo dadkii uu matali lahaa dhexdiisii intuu dhex joogi lahaa inuu jijigo uu ka shaqaysanayo ay noqotay, uu dowladdii uu gacanta u horsanayo. so qof walbana uu leeyahay uun waxala dhaco, waxa weeye mu malaynaya dadka inay qalbigooda uu fiican yahay. waqti badan buuna qaadanayaa in quluubta dadka ay hagaagaan oo wadaniinimadii iyo lahajecladii iyo gidi lagu soo abuuro. waa hagaag. waxaan xag dhankaas uga bixaynaa sanadkii 2019 aan idhaahdee waxyaabihii shacab ahaan adiga aad soo aragtay. bal waxaan jeclaan lahayn haddana dhanka siyaasadda in aan mid iyo 2 su-aalood aan kusoo koobna barnaamijkeena oo aynu muddo kusoo guda jiray, lagana yaabo intaan ku guda jiro in inagana inoo gaadho sanadkii 2022 oon weli waxaynu ku jirtaa inagu sanadkii 2019. axmed yaasiinow, waxbaa dhacay dhibaato fara badan oo shacabkeena haystay, ilaahay waa uu ka soo fududeeyey.
inkasta oo gumaysigii uu jiro oo waddankeennii uu yahay waddan la haysto weli waxaa jira nafis uu shacabku u dareemayo inkasta oon la garanhayn waqtiga uu sii socon doono oo aynu siyaasadda Ethiopia aynu si fiican u garanhayno oo dhowrkii sanaba in sanad ilaa 30kii sanaba ama 20kii sana ku dhawaadba hal sanad ah waxoogaa ay bulshadu nafis ay hesho beriga dhexdeeda waxaa aad u jirtay in dadka shacabka yihi midnimo macal siyaasi dowlad iyo jabhad iyo ururo mucaarad ah in midnimo qof waliba hal ku dhagiiso uu ahaa midnimadiina muddo ay soo socotay hase ahaatee xilligan aynu ku jirro iska wada siyaasiyiintii madaxdii jabhadda iyo madaxdii Somali State xitaa shacabkii aan midnimadii ay social media ay ku dirirayeen ilaa hal midoobadii iyada faraha laga qaadayo hadda anagoo reer hebel iyo barnaamijyadii aad moodo in faraha la iskaga wada qaaday midnimaduna ay tahay midka kaliya ay tahay dadka shacab iyo dowlad iyo mucaaradba meel lagu gaari karo ay tahay maxaad is leedahay wuu u wiiqay ama lagaga kaaftoomay arrintii midnimada runtii horta waxyaabo badan oo aan soo arkay murugada ugu badneed waxa weeye markii ugu horeystayd weligii waxaan u malayn jiray aniga mar horena waan sheegaan u malaynayaa in annakan nala gumaystaan u malayn jiray laakiin hadda waxa ii caddaatay oo aan soo xaqiijiyey inaan annaka isgumaysano ama aan nahay dadka gumaysiga kalkaalka oo ah oo u fududeynaya in annakii nala gumayso maxaa saas u leedahay haddaad tiraahdi waxaan saas u leeyahay waxa weeye Ethiopia ama hadday noqoto wadamada westernka iyo waxa kaleeto dhan waan naqaanaa saa uma diilgaraynayna waad garanaysaa cadowgan meesha uu kaa taagan yahay iyo saa ula dhaqmaysa laakiin cadowga aadan garanaynin waa cadowga gudahaaga ku jira ee intaas isku dayaya in uu ama hagardaamiyo ama caqabad kugu sameeyo ama uu dhib aanan loo baahnayn uu kuu keeno tusaale ahaan Ethiopia haddeerto haddii la yidhaahdo waxa weeye waa qoomiyadaan nidhi qoomiyadahaasaan nidhaahna aniga waxyaabahan ku dooda waxa weeye Ethiopia iyo Soomaaliya ah waxay ku kala duwan yihiin waqtigan xaadirka ah ma jirto dadka qaarkiis waa maxaa saas u dhahaysaa waxaan saas u dhahayaa hadda Jubaland waa gooni Puntland waa gooni Somaliland waa gooni Muqdisho iyo Banaadir iyo inta kaleetana waa gooni hadda gobollo kaleetana waa la sameeyey oo koonfur galbeed iyo wax la midka ah kuwaas haddaad fiirisid gobol walba even Jubaland waxaa leedahay TV-geeda u goonida ah wuxuu leeyihiin ciidankiisa u goonida ah dowlad u gooni ah so ismaamul u gaar ah baarlamaankoodii wax walba ah maanta haddii uu qarax ka dhaco muqdisho Jubaland effect badan uma yeelanayso oo dee qaraxaas wuxuu ka dhacaa leeyahay Puntlandna sidoo kaleeto qaraxaas halkaas ka dhacay waxaas halkaas ka jira al-shabaab haddii meel weerarto dan lagama laha oo waxaas saasee dan marka dhinacan kale haddaad fiirisid oo aad eegtid farmaajona wuxuu iska haystaa iyo dowladdiisana xamar iyo bilad Soomaaliya soo inta kaleeto iyo baarlamaanka inta yar ka shaqeynaysa Ethiopia kaleeto haddaad fiirisid marka waa sidoo kaleeto Somali region waxaa leedahay ciidankeeda goonida Oromiya ciidankeeda goonida TV-geeda goonida baarlamaankeeda goonida waxa wal ismaamulka goonida ah wixii ka dhacada adiga hadda markuu dagaalo ka dhex dhacayaan amxaarada iyo oromada ma dareemaysid oo waa iska deganaanaysaa markuu mataqaanaa Soomaalida iyo oromada uu dagaal ka dhex dhacayay mooyaale ka socdeen dhinaca kale waxba cidda kuma ogeyn oo cidda kale danka ma lahaaba so dowladdu waxay ka jirtaa inta yara adsaabo joogta ee federaalka ah shaqadoodana waa shaqadii guud ee ciidamadii waxa ay ilaashaan mooye wax kale ma ah so markaan ku leeyahay labada dhinac marka waxba kama kala duwana ismaamul kasta wax kasta saa independent u ah laakiin annaka waxay uga duwanahay sida ay ciidanka ay u joogaan la leeyahay Amazon ay u ilaaliyaan
ayay kuwan ciidanka federaalkan agaarkeena u joogaan so marka laakiin waxaan markii aan u baahna inta u baahna inta annakii aan heshiino danteena ka tashano mustaqbalkeena ka hadalno waxaan rabno inaan ka wada tashano ayaan isla hadlaynin oo isla shaqaynin iska soo horjeednaa ishaagirdaameynayna وهاجاك وقت جاء آدي نقول إرادي مدن أحمد ياسين سنة كلبضة كون يلباتن كمحاد أوران لهيد وحال جسوا برتي لبضة كون يسجى أن سؤال شو عليو سنة كلبضة كون يسجالية طبعا كمحال جسوا برتي بعد أوران لهيد أو لبضة كون إيو لباتن كمدة الصومالية كل رقم صومالي ستيد حق عادته تلا سؤال تلا بحين هذا قدام بيسا ومعصن aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ilays iyo adiga khaasatan sida sharafta maanta sanadka fiican aad interviewga u samaysay waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ku dhaho waa mahadsan tahay mar walba dadaalkaad samaynaysay sanadkan aan intaas dhan ama sanadka labadii sanadkii xoogaagaan orordeynay oo dhan iyo wixii ka horreeyeyba shaqada halganka u qabatay ka warhaynta su'aalaha kuwa kaftanka kuwa taariikhiga aad baan kaaga mahadcelinaya taas ka sokow waxaan aniga aan arkay oo aan ogaaday oon soo xaqiijiyey in aan xal u heli karno danta guud haddii aan isku tashano qof walbana meesha mucaarad aan isku ahaano laakiin aan lahaano sharciyo haddaan lahaano aan isku mucaaradi karno Ethiopia election baa ka dhici doona 6 bilood ee soo socota ama 8 bilood soo socota electionkaas dhacaya waa in aan haddii aan nahay Soomaalida ogaliya aan u diyaar garowno maxaan ka wadaa inaan u diyaar garowno electionkan hadda soo socda haddii aan xubnaheena aan mar kalena inaan ka hadalnaa fiicantan maadaama hadda waqtigu nagu yaryahay haddii aan la isregister garaynin haddii aan tirakoobka aan dadkeena aan reer baadiyaha degan inaanan qof walba sharciyadii ku vote gareyn lahay waxaaba loo samaynin kuwa magaalooyinka jooga sharcigii aan loo ogaanin aan laga warhaynin qof walba xaqiisa iyo sida uu vote gareynayo waxa dhici doona wuxuu noqonaysaa waxaa dhihi jira opportunity ama fursad aan laga soo kaban karin taas ka sokow xaaladda hadda ka jirta deegaankeena waa xaaladii ugu foosho xumeyd ee intaan arkayay sanadkii lasoo dhaafay kalsoonidii dowladda way yaraatay oo intaas buuq baa socda iyo isku dhegdheg dhinaca kaleeto electionkii kadib markuu dhacay jabhaddii wax yaroo buuq yar baa soo dhex galay oo sidan loo baahan yahay in laga gudbo maadaama mar walba election dhaco laba dhinac kala dooranayo casharka ugu muhiimsan aan ka baranayno waxa weeye in aan hal adeeg lahaano in aan hiigsi lahaano iyo himilo aan hiigsanayno taas oo noo keenaysa guushii aan rabnay ee xasaasiga ahaa ee ay ka tashiga ahaa haddii aan isku kalsoonaano oo aan annaka aan danteena aan ka wada shaqayno ma aha dadka oo dhan inay wada shaqeeyaan in yar oo isku kooban oo isku kalsoon haddii ay hal mar ay shaqadan wada gasho wax ka fudud ma jirto marka waad mahadsan tahay intaasaan kusoo koobayaa waxaan ku rajaynayaa waxaan hubaa haddii aan wada isku tashi samayno in aan guulaysanayno aan gaaraynana mowqifkii aan waalgamayno aad iyo aad baad mahadsantahay mudane axmed yaasiin jaamac ayuu ahaa kaasina oo caawa aan ka wareysanaynay sanadkii 2019 dadkii iyagu Ilays TV caawa fursadda u helay in ay ka hadlaan waxyaabihii ay kaga xasuusan lahaayeen ama ay ka xasuusanayeen sanadkii 2019 wixii soo maray ee iyagu ay jaaniska u heleen in ay iyagoo baahi badan u qabay ay helaan sanadkii 2019 sanadka 2020 waxaan rajaynaynaa mudane axmed yaasiin iyo asxaabta kale in ay u heli doonaan jaanisyo ka wanaagsan kuwii 2019 aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa mudane axmed yaasiin barnaamijkan aad caawa martida noogu ahayd Ilays TV iyo sidii aad taariikhda wanaagsan noola wadaagtay
waxay insha allah waad ku mahadsantihiin daawadayaasha tirada yare ee aad iyo aad ka sharafta u lahow kuwii horey noo daawanayay iyo kuwa haddaba na daawanaya iyo kuwa gadaal inaga daawan doonaba waxaanu leenahay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu xadima leeyahay waa laga helayo hadhow lagu xusuustaa kii noo hagaagee noqo loo xugan yahay 2020 waa anigoo saaxiibkiina waxyar baa nooga harsan annaga 2020kii intaan kulmi doono insha allah 2020ka waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Adna hogonta ay siyo habenda la balwa